nagu soo biiro injineer aqoon-yahan ah oo ka soo shaqaynayay sektorka guud ee dhaqaalaha mudane agaasimo guud waxaan kugu soo dhaweynaynaa wasaarad ka kooban 4 qaybood oo aad u waaweyn waxa weeyaan waa ganacsiga waa warshadaha waa dalxiiska iyo xabkaha iyo faleenka waa 4ta ugu muhiimsan dhaqaalaha dalka 4taas waxa weeyaan intii uu wasiirka wasaaradda ganacsigu joogay wax badan baa laga qabtay sectorska qaar injineer Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed Abideeq agaasimaha guud ee cusub ee wasaaradda ganacsiga warshadaha dalxiiska Soomaaliland ayaa isaguna waxa uu shaqaalaha ka codsaday in ay la shaqeeyaan si shaqada qaranku ay u noqoto mid u fusha sidii loogu talagalay wax qabta wax weey waa shaqaalaha weey haddii shaqaaluhu shaqay waayo wasiirkuna guuleysan maayo wasaaraduna guuleysan mayso qarankuna guuleysan maayo marka haddii aan la isla qaban meel lama gaadhayo marka runtii ilaa qofka waashmaanka jooga ilaa wasiirka qof walba mas'uuliyad buu leeyahay haddii qof kasta mas'uuliyadiisa ka soo baxo taa macnaheedu waxa weeyaan wasaaraddaas way guuleysatay haddii wasaaraddaas guuleysatana qarankii baa guuleystay marka runtii inaan qof kasta halkiisa ku qiimeysan yahay wax soo saarkiisa leeyahay is-ixtiraamkiisa leeyahay qof ixtiraamo shaqadiisa ku ekaado ayuu maadaynoo balana maxamuud xasan sacad saajin wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha dalxiiska Soomaaliland ayaa isaguna halkaas ka jeediyay hadallo dardaarana haamaha line minister baan nahay waan wada shaqeyn fiican ba waliba naga dhaxaysa cabashooyinka ugu waaweyn waxa ninka laysan qaadanaya sometimes wuxuu ku qaadan jiray 20 cisho 3 cisho markuu meel wareego meel ka soo dhamaysto frustrate garoobi jiro tababu maqlaan jiray markaas uu haddana mid kale tagi jiray halkan dambe Allah mahadle waxa waliba mahadle qodob warshada oo naga caawiyay halka 6 qol looga dhisay waxay noqdeen one stop shop hadii kii moogtahay ma hayna moogtahay online ka hay mid ka yar physical iska artificial iska samaysan laakiin waa la bahadiyo saacadii baa lagu qaataa imika taasi waa guul inoo soo hoyatay weeyaan waxaan rajaynayaa kii kale ee moogtahay online kiina waa process imika socota xaggayga way ka dhan tahay xaggii qolooyinkii waa sameeynaa yiri waxa weey waxaan filaynaa sanada inay nala dhaafin dalxiiska ruuxantii waxaan leenahay dalxiis aad u ballaaran baan leenahay oo waliba meelaha qaarkood ay yihiin inagu ma fahmayne dadka kale markay yimaadiin hanti qeyr caadi oo sanada tan waxay noo qorshaysan biyo kulul baan ka bilaabaynaa anagu inta dadaalkeegii waan sameynaa waan wadaynaana insha Allah khayr hawlahaasi waa sidaas waxa weyn waxaan ilaahay ka rajaynayaa sidii agaasime Mustafa inaan ku mahadiyo kowladii agaasimaha igiibo ahaa laakiin wasiir baan dhalay insha warga khayr bay noqon doontaa waan ku soo dhaweynaynaa gabagabadiina injineer Cabdiraxmaan Maxamed